بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الكلمة بالك سو دنيا دعالة كجوكتان ومركلة يا برنامجيدين aad kala socoteen Airo TV barnaamijku waxa idin qaada dhigi doona anigoo suxufi Abrone maanta barnaamijka aanu ka hadlayno waxaan ugu magac darnay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kaalinta ay ku leeyihiin mujtamaca ummadda Soomaaliyeed barnaamijka maanta waxa igu martay aqoon-yahano dhalinyarada oo Soomaaliyeed oo sida hore u sheegay wax ka barta jaamacadaha ku yaala bariga Afrika gaar ahaan waddanka Uganda dhalinyaradaasi waxa ay kala yihiin Dr. Cabdimajid Maxamed Sulub oo ka soo jeeda degmada Wajeer gobolka NFD sidoo kale Ilyas Cabdirashiid Sayare oo ka soo jeeda gobolka Sool Daawud Abdullaahi Cali oo ka soo jeeda gobolka Banaadir sidoo kale Cabdirashiid Xasan Dhoore oo isna ka soo jeeda magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan akhyaarta waan isku soo dhaweynayaa Airo TV marka koowaad inta kadib run ahaantii dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waxa weeyaan waxa lagu tilmaamaa halbowlaha ummaddu ama ummadi leedahay marka daayarta laga hadlayo dhalinyaradu marka ay u kacaan dhinaca wanaaga waxa ay keenaan ama ay kobciyaan maskaxda bulshada laguna hana ama lagu sare loogu qaado wadanka ama himiladiisa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay ku kala filaqsan tahay daafaha dunida ama shanta qaaradood mid walibana waxa uu hayaa kaalin ama waxa uu ku jiraa kaalin buuxda maanta dhalinyarteena waxay ku nooshaasaan sheegay daafaha dunida waxayna horay ama meel hore kaga jiraan meelo badan oo muuqda oo ay mujtamaca caalamka ku loolamayaan dhalinyarteena ayaan markaa qayb ka mid ah maanta barnaamijkeenan ku soo qaadan doonaa waxaan ku soo dhaweyn doonaa Dr. Cabdimajid Maxamed Sulub oo asaga ka mid ah dhalinyarada maanta aynu wax ka weydiin doono barnaamijkan doorka dhalinyarada Soomaaliyeed mudane Cabdimajid su'aasheeda koowaad inta aan u gelin bal wax yar introduction si qofka aad tahay iyo waxa aad barato والله سنتهي صاحب كيف فيصل أبروني مقاعي قصات شكتي وحويا عبد المجيد آدم محمد وحنكسو جدا كينيا سيدا قارهان وحنكسو جدا مقالة وشير هل كان وحانو جوغا إن أنا كبرتو وحبرشان سمينيا أو دكتور مركا شكلي دو كون مركا وإنتاس aad baad u mahadsan tahay Cabdimajid runtii Cabdimajid su'aasha adaan kugu daafuri doonaa waa maxay baad is leedahay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leedahay bulshada soo dhawow والله صرت مركز سعد كيف فيصل أبروني dhalinyarta Soomaaliyeed runtii door weyn bay ku leeyihiin xagga maartay bulshada iyo wadanka Soomaaliyeed doorka ay ku leeyihiin door bay ku leeyihiin doorna waxay ku leeyihiin xagga dhaqaalaha iyo waxbarashada horta inay wax bartaan ee wadankooda wax maartay la taaban karo ay u qabtaan doorka kale ay waxa weeyaan waa inay maalgashi ku sameeyaan wadankooda iyo wixii ay barteen ay ku anfacaan maartay wadanka ay ka soo jeedaan oo wadankooda Soomaaliya ah xaalna waxa weeyaan hatta dhanka siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed door bay ku leeyihiin inay ka qayb qaataan siyaasadda dalkooda si ay wax uga qabtaan mise wax uga bedelaan maartay nolol xumada jirto ee dadkooda u anfacaan marka aad leedahay dhinaca waxbarashada iyo dhinaca dhaqaalaha ayay qayb ka yihiin halka maxaad noo iftiimin kartaa dhaqaalaha marka laga hadlayo dhaqaaluhu wuu farabadan dhinace ayay kaga jiraan baad is leedahay dhanka dhaqaalaha horta waxaan leeyahay waxa weeyaan horta haddii ay meelo ka soo jeedaan oo wadamo kala ganacsi ku leeyihiin waa in ay wadankooda iyaga ay u dhasheen ay maalgashi ku sameeyaan sababtoo ah hadday maalgashi ku sameeyaan shaqo abuur bay keenayaan shaqo abuurtii marka dadkii Soomaaliyeed oo ka soo qaad haddii ay Muqdisho tahay dadka Muqdisho ay anfacaysaa sababtoo ah hadda meelahan joogno Soomaali badan baa ganacsi ka furtay laakiin dad ma ajnabi baa ka faa'iida laakiin haddii ganacsiga isaga aan ka furno Soomaaliya haddaanu ka sameeyno anfac badan buu keenayaa dhaqaalahan uu kobcin lahaa yani GDP-ga sida la yiraahdo wadanka kor buu kici lahaa waxyaabo la mid ah oo badan aad baad mahadsantahay waan kugu soo noqon doonaa Dr. Cabdimajid waxaan u yeerayaa Dr. Ilyas Cabdirashiid Sayare oo ka soo jeeda gobolka Sool Dr. ku soo dhawow adiga laftaada bal waxa aad baratay jaamacadda aad wax ka baratay magaceeda bal ku soo dhawow horta marka hore assalaamu calaykum aad baan idin salaamayaa adigoo suxufi Fikrona marka hore si garan ku salaamayaa magacaygu waa sida aad sheegtay waxaan ahay nin dhakhtar magacaygu waxa weeye Ilyas Cabdirashiid Sayare
waxaan ka soo jeedaa gobolka Sool khaasatan maxaan dhahdaa magaalada la yiraahdo Laascaanood oo aan ku dhashay halkan waxaan ku suganahay dalka Uganda magaalada la yiraahdo Shaka jaamacad la yiraahdo Kampala International University ayaan waxaan ka diyaariyaa darajada heerka labaad ama loo yaqaano masterka waa cudurrada carruurta daryeelkooda andhowa su-aashaasi adiga laftaada adoo sii raacsanayo si aan waqti uga faa'iidaysano cabdilmajiid wax badan buu ka hadlay waa maxay baad is leedahay doorka ugu muhiimsan ee dhalinyartu ay ku leedahay bulshadooda horta su-aashaas dan jawaabteeda aan yara qeexo horta marka laga hadlayo doorka dhalinyaro ay ku leedahay dal ama bulsho ku nool deegaan horta sida loo og yahayba bulshadu waxaan leeyahay dhalinyaradu waa laf dhabarta bulshada hadday ahaan lahayd dhinaca xoogga hadday ahaan lahayd ma garanaysaa dhaqaalaha hadday ahaan lahayd dhinaca tirada tusaale ahaan sidaynu wada ognahay dhulalka ay ku nool yihiin ama dhulalka ay degaan dadka la yidhaahdo soomaalida loo yaqaano ama qoomiyadda soomaalida la yidhaahdo sida la og yahay waxaa ku badan oo marka tira ahaan la isbarbar dhigo dadka ma garanaysaa carruurta waayeelka iyo dadka dhalinyarada ah marka la isbarbar dhigo waxa la og yahay tirada dhalinyaradu inay ka badnaanayso 70% ilaa 75% la gaarsiiyo Soomaalidan garan sidaa daraadeed waxay ku tusaysaa in maaragtay bulshada Soomaaliyeed loo yaqaano in xooggeedu uu yahay ama ay ku dhisan tahay dubdhexaadka ay ku taagan tahay uu noqonayo dhalinyarada sidaa daraadeed dhalinyaradu waxa weeye lakabyada isku xira bulsho inay horumar ka gaadho dhinacyada kala duwan ee nolosha sidoo kale waxay ka qayb qaadataan geedi socodka nabadda iyo in ummadi jiritaankeedu u noqdo mid sugan soo garan maysid sidaa daraadeed dhalinyaro aqoon-yahana ama aqoon fiican leh oo tababar fiican haysta haddii la helo waxay naga caawinaysaa in xirfadahoodaas kala duwan ee wanaagsan inay kaga qayb qaataan bulshada dhinacyadeeda kala duwan inay ku horumariyaan soo garan maysid marka haddii la helo bulsho dhalinyaro iyagii dhisan oo nafsiyan iyo maskaxiyanba diyaarsan haddii la helo oo dhinaca wanaagga iyo dhinaca ma garanaysaa togan wax ka fiirinaya waxay ka qayb qaadanaysaa in ay ma garanaysaa dhiirigelin u noqdaan dadkeennii waaweynaa sidoo kale ilmaheenii yaraa ee soo korayay in ay u noqdaan tusaale nool oo birita ka maalin ay hiigsan karaan soo garan maysid Soomaalida waxay ku mahmaadaa awrka dambe awrka hore sanqaadkiisu leeyahay marka waxaan filayaa haddaan anaga dhalinyaro ahaan sawirkeena aan qurxino oo ma garanaysaa sawir wanaagsan jiilalka naga dambeeya aan u muujino in ma garanaysaa kuwa naga dambeeyana ay hiigsan doonaan meeshaan maanta hiigsanayno meelo ka sarraysa halkaasaan uga bixi lahaa aad baad umahadsan tahay doctor Ilyas aad baad umahadsan tahay iminkana waxaan u yeerayaa daawud cabdullaahi cali oo isaguna doctor wax ka halkaa jooga ah kana soo jeedo gobolka banaadir mudane soo dhawow waa dhowahay saaxiibkay magacayga saa sheegto waa daawud cabdullaahi cali waxaana bartaa public administration ama cilmiga dawliga maamulka dawliga sida Soomaaliland diil Soomaaliyeed baajkeyga koowaad waxaan soo dhamay jaamacadda Muqdisho haddana waxaan dhigtaa darajada labaad ama master degree dhigtaa waxaana ka dhigtaa jaamacadda IU Islamic University in Uganda waad mahadsan tahay daawud su-aashayda aan ku weydiinayo waxay tahay sidee qayb uga noqon karayaan dhalinyarada Soomaaliyeed dib u dhiska dalka abrona waa mahadsan tahay runtii markii laga hadlayo dhalinyarada waxaa waaye waa udub dhaxaad waaye ama cududa bulsho ay ku taagan tahay waaye waqtigoo nagu yar iyo ciwaanka oo aad u weyn dartiis miisa macid dib ugu laabto sooyaalkii ay lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waddanka waxay soo qabteen laakiin haddii aad ku dayo inaad hal point ka taabto haddaad isku dayo toddobaadkan waxaa u dabaaldegaynay inuu yahay toddobaadka xurriyadda Soomaali badan waxay u taagneed oo habeeno badan ay u soo jeedeen ay u dabaaldegayeen waxa ay tahay xurriyadda hadda aan haysano midaas oo aan qaadanay 60 sano ka hor marka markii laga hadlayo xurriyadda hadda aan ku nooloonayno annaga aan haysano
dadkii run ahaantii noogu tagay waxay ahaayeen 13 صح dhalinyaro ah taagtay oo u tafaxeeyay waddankan gaarsiiyaan xurnimo marka sooyaalkii hore iyo hadlaayo Soomaalida meesha ka imaatay asal ahaanba halka ay taagantaa Soomaaliya hadda waxa dhihi karnaa waxa mar walba waxa door fiican ka dheelaayo waxay ahaayeen dhalinyarada ahaayeen hase ahaatee maalmahan dambe waxaad moodaa in xoogaa dhalinyarada oo gees bidixeed macnaha in la gees bidixeynayo dhalinyarada mar walba la isku dayayo in laga marjinaas gareeyo siyaasadda iyo geedi socodka ee Soomaaliyeed oo aad moodo in maalmahan xoog badan ugu hayaan ragga odayaasha oo waddankiina macnaha horeyna macnaha waxba nagu soo qaban haddana ilaa hadda nagu dhigan oo jaaniskana ka lacnaan intaas markaa ka gudbo صح intaas markaa ka gudbo marka waxaan rabaa inaan ka hadlo doorka ay yeelan karaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed waqti xadirkan hadda aan taagannahay mawduuca marka halkaas taagan yahay waxa waaye topic uu kala qaadmaya ninka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed maanta doorka macnaha ku yeelan karaan mujtamaca ama waddanka waxaan ka fiiri karnaa perspectives ama dhinacyo badan ka fiiri karnaa waxaa ka mid ah dhanka amniga ka mid ah waxaa ka mid ah dhanka siyaasadda ka mid ah waxaa ka mid ah dhanka dhaqaalaha ka mid ah waxaa ka mid ah dhanka waxbarashada ka mid ah marka haddii intaas gudaha u sii galgalo markii aan ka hadlayno amniga kale markii aan ka hadlayno waxaad ogtahay wariye waxaa ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed hadda markii laga hadlayo amniga ama markii laga hadlayo tusaale ahaan oo kale hadda Soomaaliya waxaan haysanaa ciidan kala duwan waxaan haysanaa military haysanaa waxaan haysanaa booliis haysanaa waxaan haysanaa nabad sugida haysanaa dhammaan adiga ciidamo waxaan haysanaa kala duwan oo u taagan har iyo habeen macnaha in ay xasiliyaan waddanka dhaxantaas u taagan rafaadkaas u taagan aad ogtahay duruuftii caqabada ay ku shaqaynayaan haddana markii la fiiriyo 99% dadkaas waddooyinka taagan ee dagaalamayo ee hubaysan ee waddanka difaacayo waxa waa dad dhalinyaro ah marka dhanka amniga ka fiirno waxaa dhihi karnaa macnaha waxa lagu jiifo lagu joogo waxa waa dhalinyarada waaye sidoo kale markii la fiiriyo dhanka dhaqaalaha markii la fiiriyo waxaan ka warhaynaa oo ognaanay markii waddankii ee dowladdii burburtay oo dadkii dhaqaale ahaan iska jilceen qof walba oo waddankii joogo ama xaafad walba ama family walba hadba waxaa mar walba carara oo baxo oo meelaha Yurubtan tago ama qurbahan soo aado ama meelahaas dibadaha tago ninkii dhalinyarada ahaa ama ninkii macnaha guriga ugu weynaa markaas asigaasaa aado marka waxaa arkaysaa markii aad aragto familiyada Soomaaliya joogo gaar ahaan Muqdisho kale marka aad fiiriso waxaa arkaysaa in ay biilayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo familigaas u baxay oo meeshaas oo tagay in ayaga noloshii ku fargaleynayaan bal xataa iska dhaa familigooda xataa qaraabada ku dhow xataa ay soo biilayaan oo mar oo biilkii iyo noloshii iyo dhammaan lagu tiirsan yahay dhalinyaradii soo baxday ee qurbaha imaatay ama shaqayso ama ganacsiyada la intaba marka halkaasna waxaa waaye waa meelo la taabo karo waayo oo la dhihi karo waxaa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka qayb qaateen burburkii dowladda intii lagu jiray in ay soo samata bixiyaan nolosha familiyada markaasi ku nool Soomaaliya maadaama markaasi aysan jirin dowlad dhisan ama shaqooyin waaweyn oo la taabo kara oo la aadi karo laga shaqeyn karo aysan jirin aad baad mahadsantahay waan kugu soo noqon doonaa geesi lama gaagaxiyo Daawud iminkana waxaan u yeerayaa Cabdirashiid Xasan Dhoore oo kasoo jeeda magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan Cabdirashiid soo dhawow waa dhawahay u mahadsantahay halkan waxaan ka salaamayaa magaca Soomaaliyeed ama afka Soomaaliyeed walba ku hadasho assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi magacaygu waa Cabdirashiid Xasan Dhoore kana imaaday gobolka Hiiraan magaala madaxda Beledweyne ku dhashtay muddadii inta 10 sano u dambeysay ee ku sugnaa magaalada Muqdisho bachelor halkaas kasoo qaatay IR International Relations Diplomacy haddana dalka Uganda ku sugan master ka sameeyna darajada labaad public administration law government dowladaha hoose haddii halkaas aniga introduction-kayga ugu baxo then waxaan rabaa doorka ama soco Cabdirashiid doorka iyo dhalinyarada ay ku leedahay maanta horumarinta Soomaaliya waa wax haddii laga sheekeynayo maalin ama saacado aan ka badan u baahan laakiin waqtiga oo iska yar awgiis laba kalmadood ama hal kalmad waxa ka gaarno halkan ka dhihi doono hadduu Ilaahay yiraahdo
waan ognahay dhalinyarada maanta inay tahay ubadkii lafdhaxaadkii ama tiirkii maanta ay ku taagnayd soomaalinimada magaca soomaali meel walbay joogaan waxqabadkoodana halkan laguma soo koobi karo soomaali markii la dhaho lambarkay ka yihiin dhalinyarada waa 70%. marka waxaad dareemi kartaa cududda iyo awoodda ay leeyihiin meeshay gaarsiisan tahay taas waxaan kala jeedaa maanta waxay u baahan tahay soomaaliya oo samate bixin karo waa dhalinyaradii waxaa ku furmay tafaraarq maanta dhalinyarada lama dhahay soomaaliyad wax ma baran markaan joogay beledweyne inta dhalinyaro wax baranaysay inta wax baranayn lambarka waxay ka ahaayeen lambar yar 10% wax ka yar aan wax baranayn inta kale waxbay baranaysay markaan imaaday ka banaadir sidoo kale 85% ilaa 90% waxbay baranayeen sidoo kale laba hor markaan imaaday dalkan Uganda ayaan sidoo kale lambar aad u badan ay wax ka baranayo dalka Uganda dhalinyarada Soomaaliyeed marka waliba ka imaaday dalal kala duwan gobollo kala duwan oo Soomaaliya ka wada imaaday marka kulli wax waan dhalinyarada Soomaaliyeed waxbay baranayaan laakiin maanta hadda isbuucu dambeeyay waxaa loo dabaaldegay isbuucan kiis waxaa loo dabaaldegay xorriyadii 60 guuradii laakiin aniga markaan fikradeeda gaaban ee aqoonteeda yar markaan ku cabiro waxaan moodaa weli gumeysi dadban inaan ku jirno taasoo ah intaas la eg wax baranayso la rabay maanta inay samata bixiyaan Soomaali meel walbay joogaan usoo dubaalaan nabad iyo horumar iyo hiisi dowladnimo usoo dubaalaan haddana markaa dhalinyarada dhex fadhiisatid wixii kuwii kaaga sheekeynayaan wax aan micnaha meeshay gaarsiisiin hankooda inuu han yar yahay sababta wuxuu ku leeyahay haddii aan aqoonteednin masar digri aanoo ah waxa ay hogaaminayo xildhibaankayga waa nin xataa aan magaciisa aan qoran karin ama maxaa la dhahaa dugsi sarax ay dugsi dhaxay hoose inta aan soo maran keliya xilligii burburkii ka faa'iidaystay Yurubta galay maxaa la dhihi jiray maanta ninka keliya la dhageysanaa oo yahay nin aqoon leh oo ahayn laakiin oo yahay nin maanta xoogaa Yurub ka imaaday ama America ka imaaday oo aan dibadda ka imaaday ninka keliya la dhageysanaa ninka siyaasadda wax laga dhageysanayay waan aragnaa maanta siyaasadda dadka nagu matalo odayaasha ah ama xildhibaanaha noqdaan ama wasiiraha noqdaan intooda badan baargaroonkooda dib loogu laabto meesha ka imaadeen waa la ogyahay mid iska tagsiilo ah iyo mid noocaas la mid ah waxbarashada heer wax aan xataa marka dalka ka carray waxbarasho ka faa'iideysan iska xoogsanayay markuu soo laabtane wasiir ah ama xildhibaan ahay dhahayo xig yaroo lacag ay soo helay marka problemka jiro dhalinyarada ilaa hadda maskaxdooda ka guuxa waxay tahay maanta aniga haddaan wax kasta barto wax ma qabsan karo sababta ma qabsan karo ah nin waxay hortaa jahli ah xildhibaan ah wasiirna ah birina waxa waa ninka maanta digri omko xamarto ama Soomaali ku laabto gees meesha roo ku laabto nin iska maskiin hadda Masar soo diyaariyay oo ku shin haysan cid dhageysanaysa mal odag u horeeyo oo maanta nabadoonnimada kugu matalayo wuxuu ku leeyahay maxaa ii wadaa $100 ma gaaraysa $50 ma gaaraysa wax jeebkaada ku jiro marka adiga inuu shaqada koowaad iyo nolosha koowaad iyo maanta Soomaaliya ka hormaraysa development-geedii horumarkii maanta dowladnimada ay u shaqeysaa marka dhanka kale sidaasi markuu ninkaas jahliga imaaday dhalinyarada wuxuu ugu faa'iidaystay in dhanka xun ugu faa'iidaysto oo ah inuu micnaha maskaxda ku gumeysto oo marka uu kursi ugu soo fadhiisto dhaha maxaa tahay cunugala tahay maxaa la dhihi jiray Soomaalinimadii hore markaa dib ugu laaban wuxuu leeyahay fadhiga lagu kici jiro odayaasha waxa waa inaad soo fadhiisatay hadalkaasi dhahdid ma maqalantid quraani si aqoon ah wax kula hadlay maanta dalkii family ahaan haddii aan kula hadlo oo family-ku u roon sidaas u roon ama dalka Soomaaliya maanta aad xildhibaan u joogtinne oo rabo codkaaga la dhageysanayo maanta marka xildhibaan tahay marka codkaaga waxa waa laba kala tahay oo codkaaga maanta ma ugu helin karto Soomaalinimada marka ku dhaw taladan iga qaadan kartaa ku leeyahay ay dhigi kartaa oo ka weyn hadalkaas ay dhigi kartaa marka waxaad dareemaysaa dhalinyarada inay xoogaa maskaxda ay ka gumeysan yihiin taas laaligee dhanka xumaan dhalinyarada loogu adeegsanayo maanta waa arkaysaa dadkii wax dilayo hooyooyinkii ama qarxinayo ama maxaa la dhahay dhibaatada ku hayo waa dhalinyarada Soomaaliyeed ayadoo micnaha ka cararayo shaqo la'aan iyo dhan xun iyo gumeysi qaad dodan ah marka aniga markaan ka hadlayo doorka dhalinyarada waa door wanaagsan maanta la rabay Soomaaliya inay gacmaheeda ay hanato isqabsato kor u qaadaan waxa samata bixin karo kaliya waa dhalinyaro laakiin dhalinyaradii maskaxdii ka gumeysan yihiin ma ahan dhalinyaro maskaxdooda caafimaad qabto oo maanta awoodii Soomaalinimada gacantooda ku jirto ma la aaminsano laakiin awoodii Soomaalinimada gacantooda ku jirta
ani fikradeyda taas waa aad baad u mahadsan tahay cabdirashiid xasan dhoore runtii gabagabadii barnaamijkeenaan kusii siqaynaa dhallinyaradaynan maanta halkan ka hadlaysa dhammaan waxaad tihiin labeentii bulshada waxaad tihiin aqoon-yahankii beri lagu xisaabtamayay dhalinyaro mahigaan ka badan ayaa dunida daafaheeda ku kala fariiqsan sugaya inay dalkooga iyo dadkooga wax u qabtaan barnaamijkeennan ma ahaan doono kii koowaad waxaan ka dhigi doonaa mid socdo oo qubanoyaal ah ama insha allah taxano noqon doono waxaan u yeerayaa doctor cabdilmajiid imika doctor cabdilmajiid su-aasheeda barnaamijka ugu dambeysay uguna qalada weyn waxa weeyaan dhallinyarada soomaaliyeed xaggey kaga jiraan isbeddelka geeska africa marka laga hadlayo waa wadamo badan qaarkood way nabdoon yihiin qaarkood colaadaha amniga ka socdo qaar colaaday kasoo doogayaan qaarkood waxbay hiigsanayaan waxaa jira dhaqaale iyo siyaasado isdiidan halkay dhallinyarada soomaaliyeed kaga jiraan isbeddelkaasi sida mawjadaha u socda ee geeska africa ka jira soo dhawo cabdilmajiid aad baad u mahadsantahay saaxiibkay suxufi abrone mar kale horta runtii dhallinyarada isbeddelka ka jiro geeska africa meel weyn bay kaga jiraan hadda haddaynu eegno waddankan oo dariska aynu nahay oo ethiopia waxaa ka socota kan hadda ilaa hadda waxaa ku dhimatay ilaa 80 qof baa ku dhimatay intana waxa u dhintay nin oo fanaan ah oo ka soo jeedo nin arday oo nin dhalinyaro ah oo fanaan ah oo ka soo jeedo maaragtay qowmiyadda oromiya ka soo jeedo ayaa la dilay waynu ognahay maaragtay mudaharaadkii badnaa ay sameeyeen iyo banaanbixi farada badnaa ay sameeyeen dhalinyarta ka soo jeeda halkaas taasi waa tii isbeddelka keentay oo ka dhacday ethiopia oo 1000 sano xitaa in ka badan oo weligeed oromo uusan noqon madaxweyne waddankaas maaragtay uusan ka noqon laakiin dhalinyaro banaanbax farada badnaa ay samaysay taxanihii wixii ahaa baa waxaa lagu gaaray in madaxweyne oromo maaragtay ra-iisul wasaare oromo yimaado haddana tan jirto waad aragtaa dhalinyartii baa haddana waxay u joogaan inay waddankii hadda gelgeliyaan oo waddanka xitaa dhinac kale u gediyaan marka isbeddel runtii oo dhan fiican iyo dhan maaragtay folxun oo eega jiraan runtii isbeddelada hadda oo maaragtay dhalinyarta day sameeyaan oo runtii laga soo soomaaliya meel fiican ka gaari karto waxaa ka mid ah maaragtay dadkan argagixisada ku jiraan dhalinyarta waa inta badan waa dhalinyar haddii ay kasoo maaragtay argagixisada kasoo baxaan ay wax bartaan oo maaragtay dalkooda wax u qabtaan runtii isbeddel badan baa ka iman doonaa sababtoo ah waddanka soomaaliya hadda isbeddel weyn buu u baahan yahay dhanka amniga haddii dhanka amniga laga gaarona waxyaabo badan oo mataqaanaa oo isbeddel badan oo dhinacyo badan sida dhaqaalaha iyo maaragtay iyo wax la xiriira badanna way ka soo bixi lahayn sidaan filaya intaada ka bixin su-aashan mudane cabdilmajiid degmada wajeer ee n f d kenya kasoo jeeda dhowaan waxaad lumiseen nin heavyweight ah ama ka mid ah saddexda ruux ee ugu sarreeya waddanka mudane aadan barre ducaale sideed u aragtaan dhalinyaro ahaan inaad buuxin kartaan meelihii ay baneeyeen raggii idinka waaweynaa kusoo dhawow aad baa umahadsanta mar kale horta runtii aadan barre ducaale saad sheegtay xilka waa laga qaaday runtii wuxuu nooga tagay kaba maadqana aad u waaweyn oo maaragtay sida ingiriiska ay dhahaan his shoes are too big to fit yani micnaheed ay tahay kabaha ninkan uu xirnaa kaba weyn bay ahay haddii aan cagaha aan gashto yani ninkan waxaan laga jeedaa door weyn buu runtii ka hay soomaalida maadqana iyo muslimiinta iyo wuxuu ahaa ninka saddexaad buu ahaa runtii quwadda kenya marka la eego hadda uu ka tagay dhalinyar badan oo way jiraan iyagana hadda siyaasadda meelaha hoose ay jiraan laakiin hamigoodu yahay sidii isbeddel ayagana ay u keeni lahaayeen maaragtay ducaalina ninkan hadda aadan barre ducaal oo xilka laga qaadin ay u bedel lahayn oo iyagana dadkoodii xagga diinta iyo sinjiyadda waxay u qaban lahayn aad baad umahadsan tahay doctor cabdilmajiid barnaamijkeeni gabagabadiisaan ku shaqaynaa geesi lama gaagixiyo rag badan baa inoo horan barnaamijka saan hore u sheegnay waan sii wadi doonaa mar kale hadduu ilaa yidhahdo haddana waxaa u yeerayaa doctor elias run ahaantii si aad sheegtay waxyaabo badan oo dhallinyarada ay qaban karayaan baa jira laakiin mararka qaar dhallinyaradu waxay leeyihiin dhaliishaasoo u muuqato inay iyaga qaarkood ishan jabinayaan oy hoos isu dhigayaan oo ay aaminsan yihiin dowladnimada iyo agaasinku inuu siyaasiga ama odayga keliya leeyahay dhallinyarada taa aaminsan maxaad adiga kaga duwan tahay aad baad u mahadsan tahay su-aashan aad weydiiso waa su-aalo aad u qiimo badan
haddii la isku dayo in laga jawaabana meelo badan bay taabanaysaa Soomaalidan garan horta sidaan hore u sheegay hore uga dhawaajiyey dhulweynaha la yiraahdo qowmiyadda Soomaalida la yiraahdo ay degto waa dhul aad u ballaaran qiyaasii Soomaalidana waxa lagu qiyaasaa tiro ahaan inay 40 milyan madaxa la dhaafayso Soomaalidan garan صح وارن kiiba 70 ka badan ay dhalinyaro noqonayaan waxaan ognahay Soomaalidu dad maaragtay maanta adduunka ku kowsatay ma aha wadada hore u soo jiray waxaynu ognahay taariikh badan bay leeyihiin waxa kamid ah taariikhii Axmed Gurey waxa kamid ah taariikhii Daraawiishta waxa kamid ah taariikhii nimankii magaranaysa gobonimada soo dhiciyay oo Ilaahay ku kaalmeeyay la oran jiray Israel leegadii oo garan maysa dhalinyaro ay ahaayeen ma ahayn rag maaragtay odayaal ahaayo timo cadaadeen maysan ahayn waa yaaraga dhalinyaro waxay ahayn is abaabulay xilqaamo isku tashaday bay ahayn Soomaalida garan anigu dhalinyaradaas waxaan uga dawanahay waxa weeye anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada adduunka waxay qabsan karaan anigoo Soomaali ah in dhalinyarada Soomaaliya aan qabsan karo walaaladay rag iyo dumarba dhalinyarada Soomaalida ay qabsan karaan afar qodob baan anigu u soo jeedin lahaa dhalinyarada Soomaalida inay xaalkooda wax kaga bedeli karaan qodobka koowaad wuxuu noqonayaa waxa weeye hayaanka in dhalinyaradu u hayaamaan ama u tahriibaan ama tahriiba ku tagaan ama dhoofa ku tagaan inay dalalka kale u hayaamaan iyagoo aan dib ugu soo laabanayn dalkoodii iyo deegaanadoodii aan horumar dib ugu soo celinayn horta qodobka aad baan ugala talinayaa dhalinyarada Soomaalidan garan markaad hayaamto oo deegaan cusub aad tagto oo dalka horumarsan aad tagto oo la kulanto waxyaalo kugu cusub waayo-aragnimo kugu cusub iyo aqoon kugu cusub iyo xirfado kugu cusub waxa lagaga baahan yahay inaad deegaankaagii iyo dadkii aad ka timi ileen dad iyo qoys iyo reeraad ka timi adiga ma garanaysaa aad ka mid ahayd oo maaragtay noloshaad la wadaagi jirta waa sax marka waxyaalahan la kulantay oo aad ku dhaanto in ma garanaysaa aad ku celiso horta wax aad u muhiim ah qodobka labaad waxa weeye waxay noqonaysaa inaad isku tashato ood xilqaanto adiga naf ahaan adigaagan deegaankii joogo tusaale ahaan anigu laasacnada kale aan kasoo jeedaa maanta Uganda joogaa Masar baan diyaarinaya inaan Uganda iska joogo oo Masarteeda Uganda aan ku anfaco dee waajib ma waxa waajib igu ah inaan laasacnad ku celiyo oo dadkii laasacnad wax ugu taro soo garan maysid marka waxa laga rabaa dadka dhalinyarada ee deegaanadii ku sugan aan meel looga bixin ama iyagu ha go'aansadeen ama fursadda iyo waayuhu ha u diidaaneen waxaa lagu rabaa inay iyagu isku tashadaan oo ay iyagu fahmaan oo gartaan in ay iyaga ka dhalan karo ilaahay wuxuu yidhi qoom ma bedelo ilaa ay iyagu bedelaan waxa maaragtay xaaladda ay ku sugan yihiin Soomaalidan garan haddaad adiga aaminsan tahay in isbeddelku ka imaanayo dal kale kaaga xidhan yahay ama dhalinyaro adiga kula mida ay maaragtay kaaga xidhan tahay ama minallaahi maaragtay naxariis kaaga imaanayso dee wax kaaga imaanaya maaha adaa lagaa rabaa kow inaad isbedesho horta la imow adigu qiyam wanaagsan soo garan maysid marka dhalinyarada deegaanka waxaa laga rabaa iyagoo shaqaysanaya oo doonahoodii gaarkaa wata haddana inay danta guud ka fakaraan inay isku dayaan in waxbarashada kore loo qaado in la isku dayo dhalinyarada intaas aruursato haddii colaada dhacaan oo kale in si wada jira nabadda looga qayb qaato garanaysaa oo nabadda iyo waxbarashaduba waxay ka mid yihiin waxyaalaha aasaasiga ee nolosha bini'aadanka ay ka oganto Soomaalidan garan qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa waxa weeye in la daba qabto hiddaha iyo dhaqanka ay leedahay ummadda Soomaaliyeed ummadii ma jiri karto haddii aysan lahayn hidde iyo dhaqan Soomaalidan garan iminka waxaa muuqata in hiddaheenni iyo dhaqankeenni oo uu ugu horreeyo afkeennuba aad moodo in xoogaa dabargo uu ku sii jiro isbedelay erayadii nuxurka la Soomaaliga waa la ilaaway cid isticmaasho waa dhif iyo naadir erayo cusub oo waxyaalo fara badan ka yihiin baa soo galay dhalinyaradii waxaad moodaa inay ingiriiska xiisanayaan inay isticmaalaan tusaale ahaan markay baraha wax soo dhigayaan ama maaragtay waxay isticmaalaan luqado carabi ama ingiliish oo kala siyaasiyiinteedu markay inala hadlayaan ama khudbado inoo jeedinayaan waxay inoo jeediyaan khudbado ingiriis ka buuxo ama carabi ka buuxo markay Facebook iyo Twitterka ay kusoo qorayaan qoraallo ay waxay noogu sheegayaan luqado ajaaniba iyagoo isticmaalaya ayay soo qoraan taasi waxay dhiirigelinaysaa
oo magaranaysa niyad jab iyo dhabar jabin ku tahay jiritaankeena soo garan maysa dhaqankii iyo hidihii iyo afkiiba haddii laga tago waxaa dhacaysa inaynu identitygeena ama magaranaysaa shakhsiyaddeena ama qof ahaan soomaalinimadu in magaranaysaa ay meesha ka baxdo oo aynu isu qaadana marka dambeba inaynu ka mid nahay dad yow ka mida dad yowgaas kale oo inaguba aynu meeshiiba ka baxnaba qodobkii soomaalinimadu ay meesha ka baxdo soomaadan garan qodobka afraad wuxuu noqonayaa waxa weeye iminka waxaan soomaalidu waxay soo martay jiilal fara badan waxaan rajeynayaa jiilkii ugu dambeeyey 30 sano inuu ahaa jiilkii ugu ayaanka darnaa ee soo mara dhulalka soomaalidu ay degto soomaadan garan maanta annaga dhalinyaro haddaanu nahay waxaanu eersanaynaa jiilashii naga horreeyey jiilkii naga horreeyey baanu eersanaynaa oo aabbayaal iyo awoyaal leh soomaadan garan balse waxaa la yidhaahdaa calaacal rajo reer laguma doojo soomaadan garan marka inaad cabato oo calaacato tiraahdo jiilkii iga horreeyey baan magaranaysaa dibadhacan iyo waxaan oo dhan bay ii geystay oo sabab u ahaa hadaad tiraahdo waa sax waad odhan kartaa balse waxaa weeye inaadan sidii aadan ku dayin adigu aad isku daydo waxay khaldeen inaad beddesho soomaadan garan si wanaagsan waxaa loo baahan yahay ilmahaynu dhalayno haddaynu carruur leenahay carruurta yaryara guryaha inoo joogta kuwa doobabkaana ilmahay dhali doonaan inay sameeyaan in ay dhisaan reero maaragtay sharciga diinta ku dhisan oo hidihii iyo dhaqankii soomaaliga ahaa raacsan kuwaas oo magaranaysaa la ababinayo ilmo maaragtay fikirkoodu saliim yahay oo magaranaysaa si wanaagsan loo ababiyey waxaa ka mid ah soomaalida waxyaalaha la hadhay qabyaaladda ilmaha yara soomaaliga markuu soo korayo haddii uu mulcaamadda ka yimaado isagoo lasoo baaday ama fed lagu soo dhuftay hooyadii waxay leedahay haddaan ku arko adoo waa lasii dilaya wax la leeyahay haddii aan arko adiga oo ooyaya ama aan arki waayo wiilkii soo dilay oo ooyaya aan arki waayo aad dili weydo anaa ku dilaya marka waxay u muuqataa ilmihii soomaaliga ahaa in lagu korinayo wax la yidhaahdo cunfi in lagu gubaabo gebigiisiba lagu korinayo iyo caadifad violence lagu korinaya u muuqataa macnaha taasaa waxay keentay qofka soomaaliga markuu in yar baxanaaqo inuu dagaalku ka soo horreeyo inaynu noqono bulsho dagaalkii u yahay caado soomaadan garan marka sida hore loo sheegay baa soomaalida ku mahmaacdo awrka hore awrka dambe saaqaadkiisu leeyahay awrka dambe awrka hore saaqaadkiisu leeyahay soomaadan garan si wanaagsan Ilyas aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtiga inagu yar waad mahadsan tahay si qurux badan baad u soo koobtay iminkana waxaan u yeerayaa Dr. Daawud runtii barnaamijkeena maadaama uu gabagaba yahay su-aashayda waxa weeyaan kaalinta ama isbeddelka geeska Afrika ka socda sida hore loo sheegay rag kale ay sheegeen ama dhaqaatiirtu ay sheegeen waa mid aad iyo aad muhiim u ah adiga dhinaca aad ka taagan tahay kaalinta ay geeska Afrika Soomaalidu dhalinyartooda kaga jiraan waa noocee ayaad leedahay waa maxay safarinta aad u dirayso dhalinyarta فيصل هو ما صنتهاي ما أنتي دلنا الصومالية لما مركي لقى هذا الصومالية موجودة مركي لقى هذا إيست أفريقيا أنتي وحاول يدين هذا كجيران وحاول هي كم داعين بريشة أسا كم داعين وهم أنتي كخب كاتي ديفوديسكي يوضع كيلو ديب سوكبتو ولو ولي أنا معنا هذا دلنا أنا سكده حركين جوين كان سرع من بوزيشننا وين سيد مدحوينياش رئيس الوزراء iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxyaabo noocaas aan iska dhaxarkin laakiin hadda waxa u maleysaa in nafsi ahaanteedii dhalinyarada markaan aad u soo kabanayaan oo marmar qaar arkayso taliyayaal la magacaabay oo dhalinyaro ah hadda waxa ka warhaysa dawladdan hadda joogto oo farmaajo hogaamiyo in taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Master Odwa uu yahay nin dhalinyaro ah runaantii sidoo kale waxa kaloo ka warhaynaa qaybo kale oo ciidamada kamid ah rag dhalinyaro inay hayaan runtii waa bilo fiican laakiin waxaan leeyahay ma ahan meeshii anaga aragnay ma ahan ama meeshii macnaha dhalinyaro ay wax ka bedeli lahayd ma ahan insha Allah waxa waaye hadda waa intaas bilo fiican waaye laakiin waan sii socon doonaa didiladana waxa waaye waa wali waa ma dhawa إن شاء الله وحوا سفر كي هيان كودنا وولد دونا إلا إيو وحوا أرنتان أن هرجينو مالو يدحرك أيضا رح يطلع أن قطة دمرك مرك إلا أنا نفتكر كنا لأن يرى هذا أنا وحوا برلمان كسوق قالوا
waa baarlamaanka istaagno naftirkeena waxa waaye kootada macnaha dhalinyarada aan raadino waxa waaye insha allah ma istaagi doono si waddanka u bedelno oo institutionada ugu waaweyn waddanka macnaha xiriirkooda qabano waddanka markaas sida raggii laga horreeyay SOL iyo rag lamid ah runtii ay u jeedeen taasi waa markii aan Soomaaliya ka hadlayo East Africa guud ahaan Faisal waxa ka horaysa naftirkeeda in uu jiro kacdo dhalinyaro uu jiro waxaad ogtahay Djibouti hadda dhalinyarada iyo ay macnaha sidii ay ugu dagaalamayaan in ay macnaha xilka ninka macnaha Ismaaciil Cumar Geelo muddo badan meesha joogay in hadda meesha ka wareejiyaan ayagii runtii la wareegaan markii aad aragto dadkan banaan baxay dadkaas banaanka taagan dadkaas qaylinaya iyo dadka isbedelkii kacdoonka raadinaya markaad aragto baraha bulshada iyo meel walba fiiriso runtii waa rag dhalinyaro waaye Ethiopia naftirkeeda sidoo Dr. Cabdimajid oo ka dhawaajiyay naftirkeeda ka warhayna marka waxaan leeyahay meeshii arabni weli maanan gaarin cadkeeni weli maanan goosanin koontadeeni weli maanan helin laakiin waxa waa bilow fiican aan wadnaa waxa waa halgan aan ku jirnaa insha Allah ilaa iyo waddankaas Soomaaliya ama guud ahaan Geeska Afrika aan ka dhigno waxa waa mandiqo ama region horumarsan oo waxa waaye hiigsado horumar iyo wadamada horumari meesha gaaraan ay gaarsiin insha Allah taala intaasna soo doonaa waxaan u baahanahay waxa waaye kaliya waxa waa dhalinyaro wax baratay una istaagtay macnaha isxilqaantay insha Allah dhalinyaro badan wax baratay waa la hayaa wax waa la bartay oo waxa waa la soo hayaamay waddanka dibadiisa la imaaday master la diyaariyay PhD la diyaariyay laakiin ilaa hadda waxa waa wax dhiman waxa waa in loo istaago la dhaho waxa waa markeeni abayaashana maasan yihiin odayaashana maasan yihiin runtii waxa waa dhaxal fiican meeshan soo gaarsiinin wixii awoowayaashii hore dhalinyaradii hore tabcaan waxa waa meeshan soo gaarsiinin laakiin wax dood iyo wax ayada oo haysan ma lahan hadda wixii anaga qabsanayna waa markeeni anaga hor wareegan waxa waa booskan hana siiyaan fursadan hana siiyaan macnaha intaas waxa leeyahay Soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantahay Daawud gabagabadii barnaamijkeena iyo su-aashii ugu dambeysay ayaan weydiinayaa Dr. Cabdirashiid Xasan Dhoore oo run ahaantii isagana ka mid ah dhalinyaradaasi dhakhtarnimada ka baranaysa dalka Uganda mudane ama doctore su-aasheeda ugu dambeysay ku weydiinaya waxa weeyaan gobollo kala gedis ayaad ka timaadeen idinkoo Soomaali yani gobollo kala gedis ka yimid waxaad wax u baranaysaan waa dal iyo dad dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad moodaa in sida aad qaarkiin sheegteen waxa lagu ka dhex tuuray oo qaarkood niyadda laga dilay oo qabyaalad iyo waxyaabo noocaas la dhex wado waa maxay baad is leedahay sida ugu fudud ee guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay u samaysan karayaan unug iyaga ka wada dhaxeeyo ku soo dhawow suxufi Faisal aad u mahadsan tahay hal qodob kaliya rabaa inaan xoogaa ka soxo ani doctor mihi oo doctor baramayo waxa siyaasi siyaasadda barto gorfeeyo waliba Geeska Afrika aad aan ugu dhowduleelo bachelor waa IR International Relations and Diplomacy masterkeygana waa Public Administration marka waa ka maasanid aad baad u mahadsan tahay ku soo marka waxaan rabaa annaga dhalinyarada Soomaaliyeed haddaan nahay unique ama hal xisbi oo kii joogo Hargeyso ama Boorama ama ka joogo maxaa la Gedo ama joogo Baydhabo ama joogo Boosaaso ama joogo Beledweyne hal urur macnaha dhalinyarada Soomaaliyeed ku midoobi karaan kaliya waxa waa horta kalsoonidii Soomaaliya inay soo noqoto dhalinyarada in kalsoonidii u soo noqoto wax walba maanta la qabanayo waxay tahay kalsooni ani adiga maanta daan heshino on ka bari aan rabno inaan sameysano haddii aan isku kalsoonayn qof xada hadii tahay wax banigaas masiixana qaadayo laakiin haddii ay tahay kalsooni meeshii dhalinyarada Soomaaliyeed kalsooni ay ku dhex jirto waxa weeye taasi waa hanan qaadi kartaa Soomaaliya kan geeska imaaday iyo kan geeska imaaday hore u socon karaa hadda dhalinyarada wax barteen alxamdulillahi rabbil caalamiin ay sidii 2010 iyo maanta 2020 laba boos oo waaweyn ay kala joogaan sababtoo ah shan 2010 nin dhalinyaro kuma dhiiran karin inuu ka soo baxo gobol kale soo dhaxmaro oo macnaha inta badan oo iska joogo oo maxaa la hayay nin dhalinyaro kale ku soo dhaweeyo dhaw nin soo dhawo walaalkaygiiyo kaala guriga maaw nin Soomaaliyeed tahay si Soomaalida lagu nin dhalinyaro ku dhiiran kara male laakiin maanta nin dhalinyaro Soomaali xoogaa way ku dhiiran kartaa inay isdhaxmaraan marka wax yar baa ka dhiman saan isleeyahay aaminaad kaliya ka dhiman
marka waxaana sababay amni daradaasi nimankan arxanlabayaasha ah oo maanta soomaaliya horumarkii iyo dowladnimadii ka hortaagan kama hortaagno si haddii loo fiiro haddii waa niman 5,000 aan gaaraynin 5,000 oo marka hal subax in lagu baxa lasoo baabi'in kara laakiin waxa gumeysi kale oo dadban ayaa ilaa hadda hortaagan si haddaa ugu dhawaajiyey waxaan rabaa dhalinyaro inaan u sheego dhowr qodob dhalinyarada soomaaliyeed meel walbay joogaan kuwa waxbartay iyo kuwa waxbaranba maanta waxa ku maqan keliya waa naftaada oo ah dhalinyaronimadaada inaad ka faa'iidaysatid uguna faa'iidaysatid qofka kale walaalkaa ah soo dhaweysatid meel walboo joogi meel walbo kaaga imaado si maanta adiga jaanis anigu waa u heli waayey nin dhalinyaro hadda ah ani tusaalo kale nin dhalinyaro ah waxa bartay jaanis waxaa u heli waayey amni 100% ah caafimaad waxbarasho free intaba jaanis waa u heli waayey marka waa inaan ka shaqeynaa dhalinyaro Soomaali haddaan nahnay waxbarasho free si ku helaan ubadkeena jiilkeena hadda annaga hadda hadda na sugayo annaga hoggaan u nahnay waxbarasho free caafimaad iyo amni intaba inta hadii la helo dalku waa dal horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo inta kale iska imaan karo marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa dhihi lahay oo ogayaasha siyaasiyiinta waxay dhahayaan siyaasiga beriyaa tahay siyaasiga beri ma tihid siyaasiga maanta tahay ka berina adiga waa ka maantana adiga waa ka berina adiga waa marka yaaligaas inagu qancinayaan oo annagana madax u ruuxeen naga daaya dhalinyarada Soomaaliyeed weliba haddana midka labaad waxaa leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed SYL sana 13 ay ahaayeen inta micnaha awood ay lahaayeen iyo maanta awooddaa leedihiin isma laha shan dhalinyarada SYL waxbarasho sidaan ma jirin teknolojiyada maanta heerkay gaarsiisan tahay ma jirin oo waxay ahayd in muddo hadalkii maanta inta laga dhahaa tusaale kale hadalkii muqdisho laga dhahaa kale inuu gobolka la gaaro waxay ahaan jirta inay maalmo qaadato kan waxay qaadanaysaa ilbirsiga hadalka iga soo baxaayo isla markii kan garow gaaraya marka warjo noocaas wax ugu faa'iideysan kartiin waa haysatiin iska daaya odayaasha madaxa naga galaa tan kale saddexaad waxaan dhihi lahay waan ogahay inta badan Soomaalida marka dhalinyarada aad wareysatid waxyaabaha madaxa laga haasto waxaa kamid ah ninka wax barta marka dhalinyarada dalkii ma ku laabanaysaa horumarkii dalka qaabkee ugu qayb qaadanaysaa siyaasadda dalkii sidee ugu faa'iideysanaysaa haddaad dhakhtar tahay ummadii aa kuu baahan caafimaad darra dalka ka jirto wuxuu ku leeyahay tahriibaha maanta ah xildhibaanka berri waa xaqiiqatan adoo tahriibina xildhibaanka maanta noqon kartaa ma tihid tahriibka maanta berri ma tihid xildhibaan saad aaminsanahay xildhibaanada maanta qaabka lagu soo xulaa ani sanadkii hore waan joogay markii la suxulayay 2016 qaab xun ay ahayd dadkaas ma ku qanacsaneen dadka wax ka bedeli karana waa annaga haddaan laakiin dhahno sidee wax ugu bedeli karnaa weligee tanaan ku sii jiraynaa iyo mid kasii xun marka waa in aanan tahriibin aan u joognaa u dhabar adeegnaa dalkii xildhibaanka maantana iyo siyaasiga maantana annaga aan nahnay qodobka afraad oo ku darsan lahaa waxa waaye Soomaalidu waxay ku mahmaadaa markaad dhegeysto maamahayadooda tusaale kale hadda qabiilka oo nagu fac weyn yahay waan dareemi karaa haddaan Soomaali qabiilku nagu fac weyn laakiin markasta marka meelaha tago siyaasadda lagu gorfeeyo ama doodaha ka jiraan waan ka hadlaa waxaan ku yidhaha waan ku celceliyaa haddana waan ka sheegay halkaan war qabiilka ha jiro laakiin nagu weynaan qabiilka ha jiro laakiin nagu weynaan sababta waxaa saas u leeyahay qabiil iska dhaafadaan dhaw maanta cid iska dhaafaysa male laakiin qabiilka iyo nagu weynaan waa in aan ka fikirnaa sidee maanta adiga aad amni ku heli kartaa haddee maanta aniga PhD holan ahay oo kale PhD yahay oo kale PhD dalka haddii aan amni iyo caafimaad aan ku heli karin oo markaa xanuustaan u aadayo dalka dibadiisii aan cabsoonayo cunugeer marka ugu hormaale halis waayo wallahi kan ama ku dilaa familkiigii hoose dad qaar aan ka cabsoonayo waxbarashadeeda waxba mayna tirin waxba ma soo kordhin laakiin waxbarashadeedii aan horumarin ku samayn karo waxay ka mid tahay dalka inaan ku laabto amnigii aan amnigii iyo caafimaadkii iyo waxbarasho free maanta ani markaan dalka ku laabto waxyaabaa igu qorshaysan igu guuxa waxaa ka mid ah hadda jaamacadda ummadda waa la furay maasha allah waana lacag la-aan ani professor aan ku dayo waxaa ka mid ah professor Jawaari heeralaha siiyo waa aqoon-yahan ruucadaay ah siyaasaddiisaan aad u dhegeysto aadna u jeclahay
wuxuu inta badan marka ka hadlaa 100% waa ninka keliya afka soomaaliga meelaha munaasabada munaasabooyinka soomaali iskugu imaadaan ama khudbooyinka markuu ku jeedinaa golaha baarlamaanka waa nin siyaasi keliya soomaaliga ilaa hadda aan ahaayo af soomaali ku hadlaya weliba siyaasadda soomaaliya haddii dib ugu laabto inta soo martay asiga marka la isku barbardhigo reality-ga jawaari waa nin dhowr luqadood ku hadlo ugu yaraan 8 luqadood meelahaas ku hadlo marka wuu ku hadli karaa luqadahaasi siyaasi ilaa hadda intaas luqad ku hadlaa dalka xilka ma soo qaban inta ognahay marka intaas soo ku hadlo wuxuu ilaaliyaa midnimadii iyo jiritaankii iyo awoodii iyo qarannimadii afkii soomaaliga oo la muro ka yahay siyaad bare waxyaabaha lagu ammaano wax ka mid ah 2 sano oo afkii hooyo oo macnaha tuulo walbo iyo geed walbo lagu dhigayay oo maanta jiritaankan oo ka mid ahay siyaad bare taas uu ku ammaanay yahay khayr allaasiyo inoo soo gunaanad mudane cabdirashiid adigoo mahadsan waqtigaa inagu yar markaa walaal inoo soo gunaanadayo waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed qabiil idinkama dhammaanayo laakiin iyo idinku weynaan soomaalinimo hala fiiriyo waxaa wax soo baratay sidaa u heshid amni adigu waa heli waasi waxbarasho free si ilmaha waxbarasho free u helaan weliba midda labaad oo aad dhalinyarada soomaaliyeed ugu dadaarma waxaa ka mid ah dalka weliba jaamacadda markay ku laabataan soomaaliya qaasada ninka xamar ku laabto oo kale 2 saaco ka mid ah waqtigaaga waxaa gelisaa jaamacadda ummadda si free ah inaad hal xiisa ku dhigtaa waani waa iga go-an tahay haddaad dalka ku laabto insha allah inaa hal maado si free ummadii aan waxbarasho free maan helin laakiin inaa bilaabo waxbarasho free inaa wax ku bixiyo si jiilka iga dambeeyo oo waxbarasho free iyo caafimaad free u helaan marka aan taladeeda taas waa Soomaaliya qabiil aan meel dhigno weliba dhalinyarooy qabiil aan maanta meel dhigno maanta dadka dhibaataysan oo meel walba taagan tahriibayo dhibaataysan waxbarasho la'aan haasto caafimaad dara haasto qaraxa ku dhimanayo dabka la gelinayo waa dhalinyarooy annaga dhalinyaro ah annaga si hoos aan iskula hadalno wax aan waa qabsan karnaa maanta awood kasta ayaan leenahay awooddeena aan ka faa'iidaysano awooddeena aan aragno mid aan noqono Soomaali haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed aad baad u mahadsan tahay intaa waxaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeennii doorka dhalinyarada akhyaarta qiimaha leh waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga ay na siiseen iyo inaad la hadashaan ummaddiina Soomaaliyeed aad baan idin salaamaya dhammaantiin daawadeel intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeennii doorka dhalinyarada oo aynu maanta qaybta koowaad ku iba furaynay oonu ku wareysaneen dhalinyaro Soomaaliyeed wax ka barata jaamacadaha geeska Afrika gaar ahaan waddanka Uganda dhalinyaradaas oo kale ah Dr. Cabdirashiid Maxamed Aadan Sulub sidoo kale Dr. Ilyas Cabdirashiid Sanyare oo kasoo jeeda gobolka Sool Daawud Cabdullaahi Cali oo kasoo jeeda gobolka Banaadir Cabdirashiid Xasan Dheere oo kasoo jeeda Hiiraan magaalada Beledweyne barnaamijku waxaa idin qaada dhigaya anigoo ah Suuf Abrone intaan barnaamijka mid lamida ku kulmeen waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu